أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. intaa kadib insha allahu tacaala waxaynu ka anbaqaadi doonaa dersi ku daba taxan dersigii ugu dambeeyay soo dhiganay ee ku saabsanaa calaamadaha musxafka kariimka ah ama calaamadaha musxafka quraanka ku jira. daba calaamadahaasi oo aynu kasoo sheekeynay qaar insha allahu tacaala maanta waxaynu dhigan doonaa qayb kamid ah oo la yidhaahdo al alifaat as-sabc, toddobada alif ee ku jira ee quraanka sidii loo akhriyo lagu tusayo markay ku jiraan. al alifaat as-sabc maxay yihiin iyo waxa ku saabiyeysan yihiin dersigan baa inooga sheekeynaya insha allahu tacaala. halka waxaynu ka aragnaa toddoba circle ama toddoba wareeg oo ay ku jiraan kelmadahaas oo ku saabsan kelmado quraanka ku dhex jira ah. ta ugu horeysan dhigan doonaa insha allahu tacaala waxa weeyaan ana. marka alifkaasi muxuu yahay, halkuu ku saabsan yahay, xaguu ku yimaadaa. waxaad eegtaa alifka yar ee ugu dambeeya ee uu dul saaran yahay daa'irada ama wareega yaree casaanka ahi. waxay ka dhigan tahay haddaba xukunkaasi haddaad intan dhexda akhrido imika oo kale, waxay ka dhigan tahay aliftaasi xukunkeedu wuxuu noqonayaa tathbutu waqfan, waxaa la sugayaa marka lagu istaagayo. wa tuxdafu waslan, laakiin markaad xidhiidhinayso aayaddan aayad kale ku xidhiidhinayso ama kelmad kale ku xidhiidhinayso aliftaasina ku jirto waa la jaraya. wa cubira canha bisifr almustatiil, eber yar oo wareegsan ayaana lagu cabiray tusaalaheeda mawaadicda ku timaaday. waxaana ku timid qur-aanka 7 meelood. kelmadda ugu horeeya waa kelmadda ku saabsan ama la yidhaahdo ana. qur-aanka meel kastoo ay kaga jirto ana. haddaba ana waxay kugu qorantay imika ana, hase yeeshee markaad qur-aanka ku akhriyeyso oo aad doonaysa inaad akhridood adigoo xidhiidhinaya kelmadda alifkii waad ka tegaysaa iyo waxaad akhriyaysaa nuunka, alifta lama akhriyayo. tusaale ahaan imika aayad suuraddan oo kale, aayaddan suuradda inoogu jirta halkan waxay noqonaysaa halkan oo kale alifta ku jirtaa marka la xidhiidhinayo ee laysku xidhiidhinayo labadii kelmadood aliftii waa laga tegaya. qul inama alcilmu cinda allahi wa inama ana oo ma odhanaysid ana markaad xidhiidhinaysid. wa inama ana nadhiirun mubiin sida suuratulmulk kugu jirta. wa inama ana nadhiirun mubiin oo alifta halkaa ku jirta waa laga tegayaa, lama akhriyayo sideedaba. ana baad odhanaysaa. kelmadda ku xigta waxa weeyaan laakina ee suuratulkahf ku jirta. haddaba markaa laakina halka asalkeedu laakina halka ku qoran imika asalkeedu ma ahayn saas, laakiin sida kugu qoran waxa weeyaan laakina iyo alif ku taagan. laakin ana ayuu asalkeedu laakin ana. laakiin imika halkan waxa kugu jirta kugu qoranun laam alif kaaf kasra saaran yahay, nuun shadda saaran yahay iyo alif uu dul saaran yahay eber. marka aliftaasi oo eberka dul saaran yahay baa laysku haystaa oo laleeyahay marka la xidhiidhinayo lama akhrinayo, marka la xidhiidhinayo lama akhriyayo, laakiin marka lagu istaagayo ma la akhriyaya. waxaa la odhanayaa imika halkan oo kale aayaddan ku jirta halkan waxay ahayd asalkeedii waxa loo akhriyay sidaas, waxa loo akhriyayaa laakina huwa allahu rabbii walaa ushriku birabbii axada. marka doonaysa inaad laakina iyo huwa aad xidhiidhiso ood aayadda sidaa u wado aliftaasi waa laga tegayaa, lama akhriyayo. laakina huwa allahu rabbii. laakiin haddaad doonaysa inaad ku istaagto oo aad kelmadda ku istaagto ku jirta alifta waxaad odhanaysaa laakina. marka la istaagayo waa la muujinayaa, aliftii way sugnaanaysaa laakina saas oo kale. hase yeeshee haddaad labada isku xidhisay imika labadooda isku xidhaysa waxay noqonaysaa laakina huwa allahu rabbii walaa ushriku birabbii axada.
oo laakina iyo huwa baad isku akhriyaysaa, alifta ku jirtana waad ka tegaysaa, waad ka boodaysaa. halkaa waxaa inoogu xigta adhunuuna, kelmadda dhunuuna la yidhaahdo ee ku jirta suuratul axzaab. iminka kelmaddan ku jirta aayaddaasi iyana markaad akhriyayso eed ku istaagayso aliftii baa sugnaanaysa, laakiin haddaad doonayso inaad xidhiidhiso aayaddan iyo aayadda ku xigta aliftii ma sugnaanaysa ee waxaa laga akhriyaya nuun fadxaysan. id jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum waid zaaqatil absaar وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ما كنت كويستاغسو، لكن انت آيدا كحكت الآخرية واحد قلنا الظنون نون فتحيسن الآخرية بس وألف ما آخرية وما كان لقو يستاغيون بألفتو شوغيسا، ما كان لقو يستاغيو تثبت وقفا waxay joogaysaa marka lagu istaagayo, laakiin markay xidhiidhinayso ood wasli isku samaynayso aayadda kusii xigta akhriyayso waa laga jarayaa oo nuun fadxale ayuumuu noqonayaa. kelmadda inoogu xigta kelmaddaas waa arasuula ee suuradda lafteeda suuratul axzaab. aayaddan aan akhrinay imika bal haddaba marka lagu istaagayo waa la mideena wa atacna arasuula markaad ku istaagaysid, laakiin markaad xidhiidhinayso aayadda kusii xigta akhriyayso waxaad oranaysaa wa atacna arasuula, laam fadxa leh ayuumaad akhriyaysaa bas. kelmadda inoogu xigtaa asabiila weeyaan, waa suuratul axzaab ku jirta iyadana waa la mid. markaad akhriyaysa waxaad oranaysaa waqaaluu rabbanaa inaa atacnaa saadatanaa وكبراءنا فأضلونا السبيلا. markaad istaagaysid, laakiin haddaad doonaysana aayadda ku xigtaad akhrido فأضلونا السبيلا laam fadxa lamaad akhriyaysaa bas in sha allahu tacaala. kelmadda inoogu xigta waa salaasila ee suurat linsaan. salaasila halkan waxaa kugu jirta bal u fiirsayna إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا ما كان دون سنة حريري سو، لكن الدا دون سنة كويس تاكتوال كان سلاسل. هذا بالكم واحد كوكو بنان وجه كله أو وجه جاسي وما كان استاجسو إن ألفت أون كتكتول سكون سي سلامكي ألفتي كويسو سلاسل أترادو إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. وحكى لو كوبنا أنا لبوا يشوف كوبنا يهين ما كان حريرين ما كان كويس تاجر سنة أترادو سلاسل، لكن ما كان حريرين الصوت سكحر الصوت لابد كلمدود وحضرنا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا ومكا ألفت ما أخريس ألفت مكا حريرين السمركا مكا الحريرين أيو. تينو قد مسا وحوين قوارير وكجرت سورة الإنسان لفتي ذا قوارير من فضة قوارير، لكن إذا كويس تاقي سود نقصو كارد مدد محاورة نسا قوارير، لكن مكا حريرين نسو قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة هدا دون سنة كويس تاكتم حاورنسا قوارير والفتي وسوغيسا. هدا بحالكم وحا ميم اهنا دو فيرستو، هدا وفيرستو لبدن وحاجر لبا إبر أما لبا دائردود oo alifaha aynu soo sheegnay dul saaran. alifta daa'iradan inoogu taala midigta waxay ka dhigan tahay markasta alifta marka la akhriyayo calaamadda waxa ku tusaysaa in uu marka la xiriirinayo ay go'ayso, taasi ta midigtu marka la xiriirinayo inay go'ayso, laakiin calaamadda dhinacan kale ku taala waxa ku tusaysaa in markastaba aliftaasi aan la akhriyeynin meel kasta ku timaadaba imika suuradan lafteeda suuratul insaan laba aayaddan akhrina aayadda ku xigta imika halkan oo kale waxa ku tusaysaa inay tahay qawaariiro oo ibirka lamida ibirka bidixda ku jira ayaa du saaran.
marka imika markasta marka lagu istaagayo iyo marka la xidhiidhinayo iyo markastaba aliftaasi iyada lama akhriyayba sideeda lagu goynaya oo calaamadaas goonida ah ayaa kutusisay culamadeenu inoogu sharxeen sida halkan inoogu jirto oo kale imika qawaarida kugu taala midigta aan kaa tusi doono halkaa midigta arowga kutusayo waxay ka duwan tahay qawaarida eberka dul saaran ee bidixda ku yaala maxaa yeelay laba calaamadood oo kala duwan ayaa ku yaala iminka hoostan hoose ulaaika waxay kutusaysaa aliftaasi laa waqfan walaa waslan walaa xidhiidhin iyo walaa istaagmidna lama akhriyay aliftaasi alifta ulaaika ku jirta waxay la mid tahay qawaariro oo kale sidaas bay labada calaamadood ay ku kala duwan yihiin oo ay ku tusaysaa in laba calaamadood oo kala duwan ay yihiin